السلام عليكم ورحمة الله كيغا مركله انيغو احفاظمو هاداد ميشان ku cusubtahay please hayga iloowen inaad subscribe ka itaawatid hadaad meeshan hore ugu jirtay ku soo dhawaaw aad iyo aad u mahadsantihiin inta qafood oo igu xariirto oo fiirsanayso oo taageerayso aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo qiso yar oo igu dhacday long time ago mar hore igu dhacday qisadan maxaa isdhahay saaxiibada la sheekay harta sida inta ay taqaan waa ay taqaana inta ay aqoonina aniga waxaan leeyahay 5 caruur aan leeyahay ilaahay dhaafo gabadheedu weyn 14 sano jirta so Nairobi aan ku noolaan jiray harta kood waxaan ku noolaan jiray Sacuudi ani familkeyga aan ku noolaan jirnay hadan hooyaday iyo walaalahay way soo baxeen Soomaaliya ku soo noqdeen so anna Soomaaliya imaado laakiin Soomaaliya waa iskeeni weyne waa la celiyay inta la celinin ka hor sheeko igu dhacdo oo qosaha idinka sheekeynaya so sheekada waxay ku saabsan tahay waxaan jiray I think waxaan jiray 15 sano 14 sano ma xasuusan karaa taa wixii aan jiray otherwise way Sacuudiyan ka soo baxno markii waqtiga waayay la dhihi jiray Sacuudiga laga baxo wala istarxiilaya iyo waxaas iqaamaha la sameeyay ahayd mugtay waan soo baxnay waxaan imaanay Soomaali tarxiil aan isku soo darnay Soomaaliya imaanay markaas waxaan ahayn aniga hooyaday wiilasha walaalahay iyo gabar ani ila dhalatay oo geeriyootay markaas Soomaali imaan kadib dhimatay way iska xanuunsaneed so sheekada igu dhacday waxay ahayd markaan Soomaali ku noqon Soomaali sheekada wixii dhan way igu cusubtahay mugtay ani Sacuudiga guri waxa ahay gabar guri la ku xiran ahay Soomaali markaan imaado little bit freedom aan dareemay dugsiga la igeeyay dugsi markii la igeeyay wallahi sheekada run waaya hatta wax aan soo alifanayo wax oo view ku raadinayo ma aha it's very funny ani ahaantay funny ila tahay bas maxaa la dhahay waa soo baxnay Soomaaliya imaanay Soomaali markaa imaanay ani iyo hooyaday iyo walaalahay aan ahayn markaas dugsiga la igeeyay subaxdii dugsiga aad jiray 6 in the morning waa la kacaa Soomaali 12 saac subaxdii markaan soo kacno oo baxno ani walaalahay dugsiga aan aad jirnay waa taqaaniin dadka Soomaali ku soo koray Soomaali waxa waaye dugsiga gabar iyo wiil misal dhiganaya qaybna gabdhaha iska leh qaybna wiilasha iska leh inta taasas waaye laakiin xagga saasay ahayd bas qaybta gabdhaha aan bartay gabdhaha saaxiibo naqanay dugsigaan aad jiray kaale arag dugsiga hortiis waxa ka furan shaleemo hortiis yaan dhinaciisa dugsiga dhinaciisa waxa ka furan shaleemada meesha ka furneed ayaa film hindi la xiiseyn jiray oh my god I can't believe it say film hindi ku soo fiirsan jiray I mean had waa fiirsadaa sometimes but markaas waxa lagu ahay so obsessed hatta sanadku yaa ma xasuusan karo but 19 something oo ahay because teenager ahay markaas so dugsigii ali idray dugsiga markii la idray ani waxa sameynaa waan baxaa dugsiga ma aaday ani gabadhay walaasha iga yar waxaan dhahaa soo bax ana iidan hore aan sii duufsanaa mugtay waxaan leeyahay soo bax filnaan soo fiirsanayna shaleemadana aadayna hay bas shaleemadii aan aadayna filnaan iska soo fiirsanayna bas wiilka shaleemada oo cidiisa leedahay wiilkaasna wuu i rabaa anigana wallahi baa mid ii sheega wax shukaansi la dhahay dhan ma aqoonin shukaans wax la dhahay meel wax shukaans laga maray ma aqoonin asigu i rabay wuu shukaansanay anigana shukaansigiisa waxa iga muhiimsanaay oo iga fiicnaay ina oo filinka fiirsado marka waxaan sameyn jiray waa tagi jiray asoo ii sheekeena wiilka dadka maskiinka asmeeshaan iska fadhiya wuu ii sheekeena anina filinkii aan ku maqanahay filinaan fiirsana adib maxaa ka rabtahay waxa la dhahay ceebtaada ilaahay subxaan qaadir haduu kun maalin qariin maalin lay soo baxaysaa mugtido ani maalin kasta dugsiga la idraa iska dhuumana shaleemadii iska tagaa filinaan iska soo fiirsana waqtiga dugsiga laga soo baxay waa aqaana waqtiga dugsiga laga soo baxay soo dhuumana waa soo baxaa maanta ma ana maalin walba sameynay maanta maalin kamid waxa dhacday dugsiga la dudumiyay tell me why like dugsiga waa loo dudumiyay like
hataa macalinka manoo sheegay man dhihin beri dugsi ha imaanina dugsiga dhismaha ku socda hadii la dhihi lahaa anima uma isceebeen lahayn magtaa guriga iska joogi lahaa ani wax kuuma ogey waa kuu soo baxay dugsiga meesha la rabay inaa aado baxay shaleemadii gal waa ogtahay no markaas soo xasuuso wallahi billahi sometimes ciyaal like dhalinyarnimada is just very strange thing why like waxyaalaha oo soo sameynaysid markaa dhalinyaro tahay you know iyo markaa soo weynaatid you like why waxaas usoo sameeyay halta markii hore waa isla yaabaysaa anyways sheeko kale yaan sii galinay anyways waxaa dhacday dugsigii subaxdii waa baxay gabdhaha saaxiibada waan ka jidka la iska raacnaa mugtaa jid weyn oo jid cadaan degneen bakaaraha guriga ayayda ilaa naxariista xagga aan degneen so waa soo baxnay waxaa dugsigii aaday dugsigii waa fiiriyey dugsigii okay inuu yahay arkay waa baxay shaleemada iska galuulahan hay cambale iska gado ee isbaandhees shaleemada la fadhiiso fiirsashaal u fadhiiso ninkii meeshaan u fadhiyaa oo sheekeynaya ani asidhan baan u jeeday ha shukaan sax dhahay dhama lagu kasay filin kale la iska rabaa inaan iska fiirsado filinkii ha ii soo dhamaado maskax degan aan ku dhahay raaxo anoo dhahay waqtigii la joogaa dugsiga laga soo baxaye intii hooyada ku qabanin aad gurigii aad harto saamarka albaabka ugu soo baxay gabadh iga yareeda ay hor socotay mugtay ayadan waxaan ku dhahay iga hormar okay way iga hormartay gabadh iga yareeda ila socotay ayadan waxaan ku dhahay iga hormar fiiri banaanka yaa jooga I don't know somehow I had feelings like ina maanta wax dhici rabaa waan iska dareemay ma dhici karto bas gabadh yaa waxaan ku dhahay baxay naga soo fiiri banaanka yaa jooga way baxday albaabka saanta u furtay hooyadee yaa la socday alla yaa la socday qofka la socday ma xasuusan karay qof kale la socday albaabkii gurigii wiilka shaleemada albaabkiisa hortiisa la ii taagan yahay ay soo orday maxay dhahday banaanka hooyaa taagan hooya banaanka taagan allah ni maxaa sameeyaa allah ani inteen gala ani cabsi and then hooyadee waqtigaas hadda maskiin waa hooyadee wallahi ciila iga qabto mugtahay hadda because walaashay iyo walaalaha wiilasha walaalaha iyo maskiin ay ku tahay ani markaas maskiin ma ahay way karkarsaneedaan ku dhahay bismillah ma sha Allah anyways waxay sameysay ma ani waan fikiraa like maxaan sameeyay inteen wax ka bilaabaa maxaan sameeyay anoo fikiraa maamada wiilka dhashaan u tagay iidan gabar ay qabtaa marka maamada wiilka dhashaan magac ma sheegay maamadii u tagay maamadii waxaan ku dhahay hooyo maama macaani waxaan ku dhahay banaanka hooyadee taagan anna waa cabsoonaan ku dhahay please kaale ee caawi haye soo bax maan dhahay way soo wada banaanka soo baxnay hooyadee saas loo taagan yahay ku dhahay saas loo taagan yahay ku dhahay isugooyano soo baxay maamadii waxay dhahday walaalo gabadha inta filin iska fiirsanaysay gabadheedii filin la fiirsanaysay waxba ha garaacin waxba ha yeelin oo hooyadee ani waxaan leeyahay sababta hooyadee ee inta u taagan tahay ay ii soo raadisay maxay tahay guess what dugsigii la dudumiyay gabdhihii ay weydiisay waxay dhahday gabdho aawe faadamo waxay dhaheen faadamo maanta dugsi ma imaanin dugsiga waa la dudumiyay maanta dugsi ma jirin miya ha she was like I know meesha ku maqantay dhaadina filin jecelahay ogtaa iyada waxay umalaysaa ani shukaansiina aaday anina filin jecel la iga tahay iyadana markaas way ogtahay inaan filin jecelo habeen walba waan ka tuugi jiray hooyo please filinka aad shaleemada habeenkii la furaa mogtahay filinka aad waa leeg diidi jiray meel dhamma aadi jiray biyaha taa ma soo daadan jirin gabdhaha sanadkaana dhuq waxay rabaan ay sameynaa ciila iga qabtaa but it's okay bas markaas waa soo hooyadee way soo waxay dhahay maya guriga la geeyna waan ka warwarsanaayay bas wala soo wada guriga harto jidka inta soo socon waa laga aamusnaa aniyaan ku dhahay wadnahaas u xanuunooyo dhididka iga socdo cabsida i hayso ilaahay subxaan qaadir waa soo baxnay wala soo wada guriga markii saas la ii soo geliyaa ku dhahay xabad darbaaxsho la igu siino markii la darbaaxan ku dhawan sii gabgabaye maamaha birtay meesha taagneed maamada li aan qaniisho dhinaca uu sii qabtay markaas leega celceli maxaan ku sheegahay hooyo Soomaali iyo adoo Soomaali joogtida ku dhahay wax qalad isku sameeyaan ku dhahay midka laga tilaabsanaan si kale kuma taqaanid waxa la ii soo qaatay aan ku dhahay jeedar hadda waxa ma sameeynayna wallahi shifrina iska fiirsanay zamanka anaka ku soo nooleen
sida cagta nalagu saari jiray zamanka hadda jiro gabdhahan oo waxay rabaan iska sameynayaan oo wili ku dhahayaan abusean ku jiraa iyo wax saanan ku jiraa iyo waan la yaabaa mugtahay ani abuse kuma soo jirin hooyaday ma gumaysan jirin bal markaan qalad sameey qaladkayga waa la i tusi jiray waa la i ciqaabi jiray waa la i garaaci jiray anyways waa la i garaacan ku dhahay seetaha la igu garaacan ku dhahay wiilka walaalkee la igu fasaxaa ku dhahay adi maxaa kaaga sheekeynahay waa layga miirsaday markaasaa dhulka layga tagay 3 beri waxaa ku dhahay korka dhan way xanuunayeen 3 beri korka way xanuunayeen kadib animaaba shaleemo iska dhaafe wiil iska dhaafe meel u dhowna animaa tagaa ku dhahay guriga le dugsigay aaday gurigay kusoo noqonaya wiilka wuxuu soo mari jiray waa xasuustaa dariishada inaan fadhiisto taa banaanka ma la ii ogoleen markaas dariishada inaan fadhiisto aan banaanka iska fiirsan jiray markaas manoo banaanka iska fiirsanaya wiilka markuu meesha soo maro wuu imaana waxaa ku dhaha walaalo iska baxdo adii meesha hadii lagu arka aniga adi maanta waa nolol dilaya iska bax wuxuu dhihi jir maxaa kugu dhacay maxaa ma ii imaanaysa waxaan ku dhahay makuu imaan kariyaa ku dhahay anigaa ku dhahay si xunaa la ii garaacay si xunaa la ii dilay meelaan usoo socdo oo ilaahay abuurta ma jirto so iska raaxaysaa ku dhahay bas anyways sheekada meeshay ku dhamaatay wiilka ilaa hadda walaalahay sometimes isla hadlaan because wiilka darisaa ahayn mugtahay way isla hadlaan but ani mar hore ay ugu dambeysay ma isla hadalno andeen sacuudi ali celi waxaa la igu dhahayba aabahe ilaahay u naxariista aabahe la waxaa la gabadhii inta waa ku halaawday shaleemo inimanay barate kowdhe gabadhaad meeshaan ka wado waa la iska kee wade sacuudiya la igu celiyay sacuudiya iska soo joogay muddaan joogay sheekada dambe anaa idin sheegi doono oo tan ku saabsan gabadheedii iyo sidaan aan aga soo tagay you know like most of dadka qaarkiis inta ku jiro oo ana yaqaan way ogyihiin aan gabadheedii kasoo tagay dadka inta aan ku jirin oo inta ku jirto oon aqoonin ani gabadheedii 14 sano jirtaa ibtisaama la dhahaa qurux leeyahay maasha Allah ilaaha ii dhaafo I cannot wait maalin ani idina is aragno sheekadeeda next video idinka sheekeena inaan ku dheeraado ma rabi waxaa idin rajeynaa khayr iyo caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaado suuban soo maanta 13 marooya alxamdulillah ilaahay khayrkiisana soo aadi sidaan u jeeday ciid ma soo socotee laakiin ilaahay khayr hana soo aadiyo inta meesha ku jirto ilaahay waxaa idinka baryayaa inaa meeshiina safe ku ahaatiin is ilaaliya wajigiina iska xirta wallahi daraadka aaday dukaanka dad badan aan arkay oo wajiga furan hatta ilmo yaryariis wajiga furan yihiin you know just iska xira wajiga iska xira gloves is unnecessary gloves ma u baahna just gacmaha ina iska dhaqdo u baahanta wajiga taabanin laakiin you know safe ahaada khayr caafimaad in rajeysonka inta ka dhiman ilaahay khayrkiisana soo aadiyo videoga dambe hadda kadib waxaan rabaa inaan soo sameeyo video 3 video because sheekada YouTube ka dhawili waan ku cusbahay wili waan taraay gareenoyaa anyways hadalkii aan ku dheeraanin waa idin jeclahay meel alla meesha joogtiin caafimaad cimri dheer idin rajeynaa insha Allah bye